marka walaalayaal runtu waxa weeye waa sidaas. runtu waxa weeye waa wax lagu badbaado, waa qofka wax kor u qaadaya ee qofka uu ku badbaadayo, oo qofku ma garanaysaa magaciisa ah sideedaba camalkaagu waa ka adiga gaarka ku haya. hamoodin ma garanaysaa dadka aduu gaarka ka dhigatay ee ku ilaalinaya, ama qaraaba ha ahaadeen, ama ciidamo ha ahaadeen, ama hanti ha ahaadeen, waxyaalaha aad qofku isku ilaaliyo hamoodin waxyaabahaas inay yihiin waxyaabaha ku ilaalinaya. hamoodin waxa weeye waxa ku ilaalinaya adiga waa camalkaaga weeye. awood iyo ma garanaysaa hadal iyo xeelad iyo farsamo iyo maskax wanaagsi, maskax badanaan iyo qalbi badan inuu ilaahay subxaanahu watacaala iyo caqli badan inuu ku siiyey iyo waxyaabahaas waxa lagu badbaado maha. waxaa lagu badbaadaa camalka wanaagsan ay ka koob tahay runtu ayaa lagu badbaadaa. oo ilaahay subxaanahu watacaala dadka wuu imtixaamaa, laakiin wuu kala shaandheeyaa. haddii aad doonaysid dahab in aad intiisa wanaagsan la soo baxdid, soo ma kala shaandhaynaysid? soo falxumo maaha dahabkii adigoo aan kala shaandhayn inaad dabtiisa u qaadatid, waa falxumo. marka waxaad doonaysaa dahab khaalis ah inaad soo qaadatid si lacagtiisa iyo ma garanaysaa qiimaheedu oo u noqoto qiimo yacni weyn, oo dahab khaalis ah u noqdo. laakiin inta hore dahab maaha, waxbaa ku dhex jira. marka waa inaad dahab kaa dhalaalisaa. ilaahay subxaanahu watacaala dadkana saas ayuu u kala galaa, wuu imtixaamaa. kuwa runta badanna wuu la soo baxaa, oo kuwa runta badan run ayaa lagu aqoonsanaadaa. kuwa beenta badanna ee diinta ilaahay subxaanahu watacaala aan ka been sheegana, kuwaasna waa la calaamadiyaa, oo kitaabka iyo diiwaanka waxaa lagu qoraa dadka beenta badan. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay walaqad fatanna aladiina min qablihim falayaclamanna allahu aladiina sadaquu walayaclamanna alkaadibiin. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu imtixaamay dadkii idinka horeeyey. ilaahayna wuxuu ogaan doonaa kuwa runta badan, kuwa beenta badanna ee beenta sheegana wuu ogaan doonaa. ilaahay subxaanahu watacaala wuu ogyahay qofkii run badan iyo qofkii been badan, laakiin waxaa laga wadaa waxaa la kala ogeysiin doonaa qofka runta badan iyo qofka beenta badan waa la kala ogeysiin doonaa, oo dadka waa la kala baraya. oo macnaha waxaa laga yaabaa dad fara badan inay isku dhex jiraan, kuwii runta sheegi jiray, kuwii beenta sheegi jiray inay isku dhex jiraan ayaa laga yaabaa. laakiin ilaahay subxaanahu watacaala dadka wuu u kala saarayaa, oo dadku way kala ogaan doonaan qof ma garanaysaa qofka beenta badan iyo qofka runta badan. waxaa la yidhi idaa cajasa alqalbu can ixtiwaa'i sidqi cajasa allisaanu can qowli lxaqi. waxaa la yidhi haddii uu ka xaajiso qalbigu runta inuu koobo, inuu run sheego, inuu hadalkiisu run noqdo, haddii uu ka xaajiso qalbigu in qofku inuu run geliyo, waxaa ogaataan carabku wuu ka caajisaa in hadalkan ama hadal run leh inuu ka hadlo. waxaa laga wadaa haddeer qofku intuuna hadalka ku hadlin waxaa laga yaabaa inuu naftiisa la soo sheekaysto, uu qalbigiisu la sheekaysanayaa, oo waxan ayuu ka soo tashanayaa siduu u geli lahaa, ama qofkan wuxuu ku dhihi lahaa ayuu ka soo tashanayaa. markana ficilka aad samaynaysid ama hadalkaa dhehaysid marka hore qalbigaaga ayuu ka imanaya. qalbigaaga ayaa waxaa ka go'aansanaysaa inaa waxaan ka run sheegtid. waxaa kaloo ka go'aansanaysaa qalbigaaga inaa waxaan been ka sheegtid oo aa beenta sheegtid. markaana qalbigaagu hadduu been sheego oo run sheegi waayo, oo aad ka go'aansato in aad been ka soo sheegto, carabkuna go'aankii qalbiga ayuu raacayaa oo ah inuu been sheego. sababtoo ah ma garanaysaa qalbigu waxaa la dhahaa qalbigu waa boqorkii jawaarixda weeye, iyo amiirkii iyo kii maamulayay jawaarixda weeye. markaana haddii boqorkaasu uu wax xun amrana waxaas xun ayay sameeyaan, haddii wax wanaagsan uu amrana waxa wanaagsan ayay sameeyaan. markaana jawaarixdu waa ciidamadii, waxay ka dhigan yihiin qalbigu markuu yahay boqorkii, jawaarixduna
jawaarixdu macnaha waa gacmihii lugihii afkii sankii dhegtii waxyaalihii oo dhan kuwaasuna waxaa weeye waa ciidamo boqorku hadduu wanaag soo amro wanaaggii bay sameynayaan qalbigu hadduu soo amro qofku inuu diintii dhegaysto inuu axaadiistii dhegaysto inuu cilmigii dhegaysto qof labadiisa dhagood oo jawaarixdii ah cilmigii diintu ku dhegaysanaya haddii qalbigu soo amro inuu xumaantaas uu aado lugihii waxay u soconayaan xumaantii qalbigu hadduu soo amro in uu hadal xun ku hadlo oo been ah qofkii been buu sheegaya markana waa sidaas oo kale qalbigu haddii qofkan xumaan uu amro jawaarixdiina waxay sameynayaan xumaantii alkadibu daa'un wa sidqu dawaa'un waxaa la yidhi beentu waa cudur runtuna waa dawadeedii markana cudurkii iyo daawadiisiiba waa haysataa haddii aad beentii sheegtid oo aa cudurkii beenta qaadid oo hadhow aad doonaysid daawo aad doonaysid oo aad daawooyin kale aad isticmaashid oo aan ahayn daawada runta waxaa weeye cudurka iskama daaweyn kartid waxaa weeye waa inaad run sheegtaa si aad u hesho daawada dhabta ah ee cudurka beenta ah jamaalu lkalaami bisidqi hadalka quruxdiisu waa run haddaad doonaysid hadalkaaga in la dhegaysto hadalkaagu inuu qurux badnaado dadku hadalkaaga in ay dhegaystaan oo ay dhigta u raariciyaan ayna ka daalin haddii aad doonaysid waxaad sheegtaa runta wax runa ku hadal oo ilaahay subxaanahu watacaala hadalkaagu wuxuu saarayaa haybad iyo wanaag iyo xikmad ayuu saarayaa iyo wanaagyo kale ayuu saarayaa haddii aad runta badisid marka waxaa weeye hadalka quruxdiisu waxaa weeye waa run dad fara badan baa markay doonayaan inay hadalka qurxiyaan waxaa laga yaabaa inay si jabjabisa u hadlaan inay hadal iska barbaaraan inay hadal soo jiidasho leh ku hadlaan inay hadalka bedbedelaan inay hadalka gaagaabiyaan oo marba nooc ka dhigaan laa iyagoo doonaya macnaha hadalkoodu inuu qurux badnaado iyagoo doonaya markana haddaad doonaysid hadalkaaga inuu qurux badnaado runta sheeg jamaalul kalaami huwa sidq waxaa weeye waa hadalkaaga quruxdiisu waxaa weeye waa runta haddii aad doonaysid hadalkaaga inuu qurux badnaado oo ay dadku dhegaystaan ayna ka caajisin runta sheeg oo waxaa noqotaa qof runow ah insha allahu tacaala waad noqonaysaa qof hadalkiisu uu qurux badan yahay asidqu yuciidu lilashyaai lownuha alburaaq waxaa la yidhi runtu waxay u celisaa ashyaada midabkeeda quruxda badan ayay u celisaa tusaale ahaan waxaa laga wadaa hadal qofaa la kulantay qofkii aa la kulantay waxaa laga yaabaa inaa khalad ka gashay khaladkii aa ka gashay haddii aa qofka runta u sheegtid waxa aa suuraysanaysay oo ahaa qofkan haddii aa runta u sheegtid wuu ku qabsanayaa ama khaladkii ciqaabtiisii ayuu ku marsiinayaa waxaa weeye waxyaabahaas ma helisid oo waxyaabaha kuguma dhacayaan oo runtaa ku badbaadinaysa oo waxaa laga yaabaa inuu kaa cafiyo maadaama aa runta u sheegtay inuu isakada ayaa laga yaabaa adigu waxaa suuraysanaysid ninkan inaa ciqaab kala kulantid ama wax xun iyo canan aa kala kulantid laakiin haddii aa runta u sheegtid waxaa weeye runtu waxay kuu sababaysaa in balaayadii aa ka baqasay iyo canaantii iyo waxyaabihii aynan kugu dhicin badanaa waa dadka runta wax u diidana waa saas